waxaana wanaagsan kusoo dhawaada barawa news war degdeg ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorsheynaya inuu xilka ka qaado taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Madaxweynaha iyo Fahad Yaasiin ayaa wax khilaaf aysan ka dhaxayn, balse hadda madaxweynaha dowladda federaalka uu doonaya inuu dhanka ololaha oo u qaabilsanaado sidoo mar labaad ugu soo laablahay talada dalka. Madaxweynaha Farmaajo ayaa Fahad Yaasiin mucaaradka iyo caalamkuba indhihiisu ay ku jeedeen, taasoo Fahad Yaasiin lagu tilmaamo dadka kakan warbaahintana ka dhuunta. Fahad Yaasiin ayaa hadda xilka qaadistiisu kusoo beegay xilli ay muddo-xileedka madaxweynaha Farmaajo u dhammaaday. Fahad Yaasiin ayaa waxaa la doonaya in lagu bedelo nin kasoo jeeda deegaanada maamulka Puntland oo magaciisa la yiraaho Asad Diyaano, horey ula tartamay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni 2019 xilli ay doorasho madaxtinimo ee maamulkaas ka dhaceysay, balse ay jilbaha dhulka ugu dhiftay Saciid Cabdullaahi Deni oo ku guuleystay madaxtinimada maamulka Puntland. Madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Puntland ay ka dhaxaysay siyaasad, iyadoo halka madaxweynaha dowladda federaalka uu doonayay inay doorasho qof iyo cod uu ka gaarsiiyo dalka, balse ay maamulada Puntland iyo maamulo kale oo isbahaysiya sameystay isugu tageen magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug, iyadoo halkaasna ay kasoo saareen war-saxaafadeed ay ku dalbanayeen in madaxda federaalku ay tagaan deegaanada maamulkaas ay ku sugnaayeen madaxda maamul goboleed oo dhan, iyadoo ra'iisul wasaarihii xilligaas Xasan Cali Khayre oo tagay kadibna madaxweynaha dowladda federaalka tagay, iyadoo markaasna madaxweynaha federaalka looga adkaaday waxa uu doonayay oo ahayd doorasho qof iyo cod. Madaxweynaha Puntland ayaa uga guuleystay madaxweynaha Farmaajo in uu tiisi oo watay madaxweynaha Puntland Saciid Deni ay qaataan maamul goboleedyada, halka Farmaajo uu doonayay in doorasho dadban aan la gelin ee la galo doorasho qof iyo cod. Masar Deni ayaa ku doodayay inay dalka ururka Al-Shabaabna waxna ka haystaan, amnigiisu aysan sax ahayn, dhaqaalihii loo baahnayna aysan hadda haysan dowladdu, lana doonayo waqti doorasho waqtigeeda ku dhacda, iyadoo maamul goboleedyadii iyo dadka siyaasiyiintu sida badanba ay daninayeen doorashada dadban in dalka laga qabto. Madaxweyne Farmaajo ayaa markii dambe loo guuleystay doorashadaas, iyadoo hadda uu Farmaajo ou Asad Diyaano oo Puntland inuu sida ay siyaasiyiintu ama dadka siyaasadda indhaindhaya ay sheegayaan inuu Puntland oo ninkaasoo taageero aad ugu badan kula deegaanada Puntland uu doonaya inuu Puntland kula dagaalamo. Asad Diyaano ayaa loo wadaa in laga dhigo taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya, iyadoo Fahad Yaasiinna indhaha caalamka iyo kuwa Soomaalida iyo siyaasiyiintaba in laga dugo markaan uu doonaya madaxweyne Farmaajo halka kaliya doorashada inuusan ka habsaamin si uu mar labaad ugu soo laabo lahay talada wadanka Soomaaliya uu doonaya madaxweyne Farmaajo, iyadoo lagu soo warramayo inuu xataa madaxweynuhu uu doonayay inuu hay'adaha kale ee amniga booliska uu kala bedelo, halka uu taliyaha booliska Jenaraal Xajaar uu xilkaasi ka qaado uu doonayo inuu geeyo Jenaraal Bashiir Goobe oo ah taliyaha xabsiga dhexe ahaa jiray markii hore, haddana hay'adda dhismooyinka qaranka hadda madax ka ah. Madaxweynaha federaalka ayaa soo jeediyay Jenaraal Bashiir Goobe inuu geeyo hal nabad sugidda, balse Bashiir Goobe ayaa ka gaabsaday, sheegana inay shaqo aad ugu adag tahay. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka aqbalay, hadda waxaa lagu soo warramaya inuu ku bedeli doono taliyaha booliska Soomaaliya. Warkaas wixii nagu soo kordho dib ayaan ugu soo socodsi doonaa daawadayaal, sidaas iyo nabadgelyo.